kulan habboon dadweynahana daawanayo kani waa barnaamij aanu ka diyaarinay baahi dhinaca waxbarashada ah oo ka jirta tuulada Cadaroosh oo ka tirsan degmada Farweyne ee gobolka Maroodi Jeex. waxaanu galnay safar qaatay 2 cisho magaalada Cadaroosh si aan u ogaano baahiyaha dhinaca waxbarashada oo looga soo sheegay magaaladaasi. ugu horeyn daawadayaal waa tan magaalada Cadaroosh oo ah tuulo aad u baaxad weyn deegaan ahaan isla markaana ay ku nool yihiin dad reemiyi ah inkastoo abaar aad u baaxad weyn ay ku habsatay deegaankani haddana magaaladu waa ta ugu badan yihiin ardayda dhigata iskuulkeeda tuulooyin badan oo ay xukunto degmada Farweyne xitaa waxay ka arday badan tahay degmada Farweyne sidoo kale waxay noqonaysaa magaalada Cadaroosh ardayda sanadkan baxaya ardaydii ugu horeysay ee dugsiga dhexe ka baxa degmada Farweyne abid iskuulka Cadaroosh waa ka halkaasi inooga muuqda daawadayaal waxaana ka muuqata dayacni isagoo haba yaaratay iskuulka uuna lahayn wax dayra hase yeeshee baahida ka jirta iskuulkani waa ay ka weyn tahay dayr waxaana ka jirta baahi aad u weyn oo aynu arki doono ugu horeyn daawadayaal waxaan jeclahay in maamulaha iskuulku inooga warbixiyo baahida ka jirta iskuulkani. bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala rasulillah salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. halka waxaan joognaa iskuulkii Cadaroosh dugsiga hoose dhexe dugsigani waxa uu ka kooban yahay fasalka koobaad ilaa fasalka 7aad ardayda dhigata tiradoodu waa 112 arday fasalada waxay ugu jiraan laba fasal bay ugu jiraan hal fasal bay laba fasal ku jiraan taasna waxa kaliftay duruufta iyo iyada oo aanan haysanin yani fasalo balaaran oo markaa ku kala xireyno macallimiinta tiradooda aad u yar yihiin dugsiga waqtigii la aasaasay wuxuu ahaa 2012 ilaa imika mustawihiisu heer fiican maraya degmada Farweyne marka la eego waa iskuulka ugu horeeya sida markaa taqriirka ugu dambeeyay wasaaraddu ay soo saartay iyo kormeeradeedii ay ku cadaysay arday fiican baa joogta macallimiinteeduna way fiican yihiin runtii baahiyaha jira iskuulka way fara badan yihiin kuwa ugu muhiimsan ee main pointska ama qodobada ugu muhiimsan waxa weeye iskuulkii waxa weeyaan ardaydii kuma filla laba iskuulku ma laha meel shelter oo ilaalisa oo ka arkaya oodaas ayaanu isaga soo deednay si aan ardayda u kontrolno oodaas oo mararka qaarkood dhalisa waxyaabo badan sida markaa qodax sida matalan qashin fara badan waxyaabo badan oo keenta xagga fasalada marka la eego waa idinka arkaya iskuulku uu dilaacsan yahay oo rubama waxa laga yaabaa wara short time inuu xitaa dumaba waqti gaaban waxa laga yaabaa inuu dumaba hadda waxba laga qaban wasaaradda iyo cid walba oo noo gudbinay wali ma hayno ilaa imika wax ka qabatay
وكذلك سدا سو كله iskuulka waxa ka jira markaasi arday dadkani waa dad reer miyi ah ardaydu waxay ka soo hayaamaan ama ay ka soo boqolaan meelo fogfog qaar baa ka yimaada Faraweyne duleedkiisa qaar baa ka yimaada Maraaga qaar baa ka yimaada meelo kale fogfog ومع ذلك سدا ay yihiin cadceed oo kulul intaasoo waxa weeyaan ilaa 2 kiilo ilaa 3 kiiloomitir meelahaas soo lugeynayaan cadceed oo kulul bay hadana sii lugeynayaan wax fiidina iyo wax raashina iyo wax markaasi ay halkan ku haystaan ma jirto mararka qaarkood waxa laga yaabaa ama waxa inta badan dhacdaba in iyaga oo halkan joogo oo waxbarashadii wata oo reerkii ka hoos guuraba dhacdama oo reerku xoolaha daba socdo mashaakilkaasi oo markaasi marka dambe lagu tweeriyo reer kale oo isagu sii jooga oo markaasi ay qaar ka sii hadheen lagu sii tweeriyo halkaasna duruuf badan ay kala soo kulanto haddii markaa iskuulku lahaa cunto loogu kabo iyo waxyaabo lagu siiyo waxay noqon lahayd markaasi in ardaygu markaa waxoogaa dheelitirana ka helo halkaasna dhibaata ka jirta waxaa kaloo ka jirta iyadana markaasi xagga markaasi biyaha oo aanaan helin markaasi aanaan lahayn adeeg biyoodoo fiican taangiga yar baa noo yaala 112 arday waxa weeyaan wax ku filan maaha waxa weeyaan yani gelinka horeba markaa waxa weeyaan muddo yar oo gaaban ayay markaasi ay ku dhamaanaya iskuulku ma laha dakhli la ururiyo ama dakhli meel ka soo gala ma laha sidaa daraadeed mararka qaarkood biyaha waan weynaa sidaa daraadeed waxay deeqtaanay wax laga qabto oo dadka u damqanaya khaasatan dadka deegaanka ka soo jeeda oo cid walba deegaankeedii iyo wax ka dhigtay dadka deegaanka ka soo jeeda waxa la doonayaa iyo ummadda muslimiinta ee cid walba markaas isagu doonaya muxsiniinta inay wax baxsadaan doonaya waxa loo baahan yahay markaas inay wax ku darsadaan waxa weeyaan waa sadaqa jaariya dugsiga waxa lagu dhigaa xiisada koowaad waxaan ku dhigaa quraanka kariimka soo arki doontaan ardaydii oo quraanka ba akhriyaysa waxa kale oo ku dhigaa manhajka Soomaaliland oo kaamil oo dhameystiran waxa weeyaan yani inta dadaal baan ku wadnaa ومع ذلك حفيظك يوم ما قلبيسنا حفيظك أنا كل شقيناي ما قلبيسنا ما لها وحلا يدهتو collective data وحنا data كورنا ما هينو حفيظكم ما لها معنى record معناه كبرنا إياه وحيانا نوعاس ما لها كراسي لو فريستا ما لها ومع ذلك نوع عاصنا هذانا مركزي أيان أقول إن مركز تكسوك عند ولله الحمد ويمكنا أرضنا وفي عنتها ونكسنتها هاي لكن وحلا الدنيا عشان الدنيا أنا والبا مركو تشوفه وكعرابي دوناي كل ما وحويا سياسة صدقة جارية وكون نقطة أو مستقبل كوش قيسنا وحلا الدنيا قف إنه وحكي شظى ماشان وما كان سمنا بدن كسوة بحيو وإلهي سبحانه وتعالى أن رجينا إن دقمدة هي مركز ضل كما إلهي كو أنفعه وحنرجع لها إن مركزي عاد وحي محسنين تذكر محسنين تيه ضمير كله فكرة هي عقل جود وسوتشيدو ماشي دير إيجيا inay markaas si fiican u soo qooraansadaan oo ay soo eegaan doonayna oo ay nala arkaan oo ay nala fahmaan waxaan wadno anagu waxaan bixinay juhdigii waxaan bixinay xoogii waxaan bixinay maskaxdii idinkana waxa la doonayaa inaad maalka bixisaan maxaa yeelay labadaas hadday iskaashadaan ayay ummadu dhaqaaqaysaa oo ilaa haddii kale waxa weeyaan deeli baa ku jiraya deeligaasina markaasi wuxuu noqonayaa mid aan markaasi marka dambe iska joogsado sidaa daraadeed ummadaha bariga iyo galbeedka marka la eego ummad kasta ummadii isku dadaashay isku tashatay ayuunba wax noqotay ummadii tafaraaruqday kala tagtay ee markaasi nimba wax dhinac u jiitay ee danaysta iska noqotay nin walba danihiisa raacay ummadaasi bulsho ahaana dib u dhacday ummad ahaana dib u dhacday aqoonta iyo markaasi iyo cilmiga iyo aqoonta iyo waxyaabaha la isku riixayo weey waxyaabaha mustaqbalka qofku wax ku noqonayo weey bulshada ay dadka kale la qaybsanayso weey saa daraadeed waxaan mar kale idinka codsanaynaa oo waliba si codsi markaasi rasmi idinku soo jeedinayna dadkiina halka jooga Ilaahay subhanahu wa ta'ala gacanta ku geliyo waxa weeyaan inaad soo dadaashaan oo deegaankiina soo eegtaan oo aad markaasi ka qayb gashaan horumarka iyo markaa wixii wanaag ay ka socdaan waynaad arki doontaan markaasi ardaydii oo markaasi kala nooca iyo waxay baranayaan iyo markaasi macallimiintii oo markaa duruustii bixinaysa waxa weeyaan si toos ah markaas u arki doontaan intaasan ku soo koobay wallahu subhanahu wa ta'ala calaamad ardayga wuxuu ka mid yahay ardayda fasalka toddobaad waxaan u xifdisanayaa quraanka kariimka ah soo gajis insha Allah ta'ala waan u akhriin doonaa aayad kamid ah aayadaha quraanka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإما تعرض
لتعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك فتخرج ملة ميسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهم الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق من شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. gudoomiyaha magaalada Cadroosh Faarax Xaw Xasan ayaa isna halkaasi ka hadlay oo codsi u diray dadka Soomaalida ah ee jecel ubadka iyo ubaxa ummadda Soomaaliyeed inay noqdaan qaar mustaqbalka aqoon iyo iftiin ku soo kordhiya ummadda Soomaalida. bismillah halkan waxa weeyaan Cadroosh halkan aynu joognaa waa iskuulka Cadroosh waxaan u lahay odayaashii iyo waalidiintii oo aan wada joognaa waxaan filayaa warbixinta inteedii hore waxayna siiyeen macalinka amba se maamulaha ayayna siiyeen daraasadda meesha taaliya arrinka meesha yaala horta waddanku keliyahan baa abaar buu ahaa abaar ballaaran oo dadkaan la qabnaa ka dhacday mid baa si annaga noo dheer deegaan ahaan dalku waa oomane iyo kolku dalkiina oomane sii yahay abaarana ay dhaceen arrimadaasi way iska adag yihiin xaaladaas ilaahay baa loo cabdaayo aad bay iska adag yihiin kolkay sidaa tahay waxaa jira ardayda sidii hore warbixinta ku jirtay meelo dhaadheer bay ka timaadaa ilaa 7 kilomitir ilaa 5 kilomitir 10 kaba meelaha qaar baa gaadhaya meeshu cunto male magaalo madaniyeysan oo dee oo hadday xitaa shilkii heli lahaayeen ay wax kaga gataan way iska dhigataa waa daabad abaara ku dhacday weeye kolkaa halkaa ardayda runtii dhib aad howlo aad ah ayaa haysata sidaa awgeed waxaanu ka codsanaynaa jaaliyadaha hay-adaha ummadaha oo dhan waxaanu baaq ugu diranaynaa sidii taakulo ilaahay baa taakuleena looga taakuleyn lahaa waxaa jirta oo kale deegaanka waxaa jira iskuuladii kale hareeraha naga xigiyo waddanka abaartu dee way salkicisay annaga se weli alxamdulilah dee ardaydii waa taa joogteen weli joogta iyadoo dee ay fadniin ku samaynayso taasina waxaa iska leh waalidiin iyo macallimiintoo kow ka ah macallimiintana waa mahad celinaya aad iyo aad buu dadaalkooda u fiican yahay waalidiintuna way la dadaalaan waxay sameeyaan guryahoo laga guuray ayaa meel mujirla reer ku hadhay baa carruurta raashinka yar loogu kabaalayna halkaa galo halkaa wax dhigashadaadii kow runtii waalidiintuna saasaan ula wadaa waxaase jirta dee horaa loo yidhi wiil dhashaaba waa reerkooda wax la qabay dee dhibtaa ardayda aanu ka cabanayno macallimiintuna way la qabtaa waalidkuna uu la qabaa oo wax la wada qabo ilaahay hay naga saaro waxa jiro kale xagga fasallada waxa weeye dee waa fasalkii oo ardaydaas waa fasalkii 7 kii afraadna way tahay way isdaba sugaan halkan dheeray ka yimaadeen waxaa ka daran dhibta ay fasalladii isu bixinayaan ee kolka uu fasal ka baxo kii kala soo gelaya dee waqtigu waa kaga dhaca suuragal sidii hore macallinku sheegay intaasoo dib way iska jirtaa waa waxaanu idinka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba amba hay'ad ha ahaato amba jaaliyad ha ahaato
taalo ilaahay baa taakuleeya wuxuu taakuleeya waan salaamaya salaam daawadayaal sida ay warbixinta inagu siiyeen maamulka iskuulka iyo kan magaaladuba waxa halkani ka muuqda baahi aad u weyn oo ay ka mid tahay in dib weyn ku qabaan ardaydu galaasyada lagu dhigto xiisadaha oo ku yar awgood isla markaana u baahan yihiin in loo ballaadhiyo iskuulka sidoo kale ardayduna ay ka yimaadaan meel aad u durugsan isla markaana ay iska sugayaan galaasyada taasina ay dib weyn ku qabaan waa kuwan ardayda oo ka hadlaya baahida ay qabaan magacaygu waa iskariyax maxali waxaan dhigtaa dugsiga hoose dhexe ee Cadarash waxaan ka mid ahay ardayda fasalka 7aad dugsigan wuxuu dhibaatooyinka haddii amba sheego waxaa ka mid ah waxaan dhamaystirnayn qalabkii xafiiska oo kale dugsiga oo si soo adarkiin oo koodan yahay biyihii iyo la'aan jirta oo iyo dugsiga oo sibirka ka jabay ardayda oo u baahan sport sidoo kale waxay tireen arday ka timaada meelo fog ardaydaasina waxay u baahan tahay in ay feeding helaan maadaama ay track dheer sii socdaan galaasyo kale waxay tireen iskuulka loo baraariyo ardayda fasalkaasi waxay tireen kuwa laba galaas oo isku dhex jira markaa waxaan u baahanahay in iskuulka loo baraariyo wax qabad weyn loo sameeyo waxaan ka mid ahay ardayda fasalka 7aad ee Cadarash dhibaatada suuq waxa kamid ah suuq iyo waxa jooga suuqiisii oo ka jabay wadooyina loo hagaajiyo deeqii suuqo aan suuq deeqayn doona deeqiisa noocisa iyo aan meesha yeelahay oo u baahan in loo sameeyo waxa kale oo u baahan oo waxa ka imanaysa meel oo qaar ka soo soconaya ilaa soddon saas daraadeed kama lahayn in loo sameeyo iskii aan qalabkii ardayda oo u baahan manhaj cusub loo baahanay sport in loo sameeyo loo sameeyo qalabkii iyo bariiska qalabka loo sameeyo kan waa iskuulka ay hadda wax ku dhigtaan isaga laftarkiisa ayaa halis ku jira sida idinka muuqata waxaana dhici karta haddii roobab ay da'aan inuu dumo dhanka kale iyaguna waxaa codsi diraya waalidiinta dhalay ubadkan halkan waxbarashada kaga jira reeruhu waa reermii dadkan way guuraan waaweeyeen kinikii laba cabuur ku dhiganayeen ama inay u dhiganay korku hayama ciidu kaga tagi guriga ma inay kaga tago maay qaar baa macallimiinta dulsaarka oo niraana dad baladhig ilaahay goorma soo celiyay hay macallimiintu saas duruuftooda iyaguna ay taas ku boqray tay arday waa meeshan waa soo gudbay macallimiinta iyo odayaasha waalidiinta taas waxay waa waxa ayna cadaadkiisa waxaana u sii diran macallimiinta in loo dadaalo oo dhiirigelin la siiyo si ay hawshan u xamilaan iyo hawlaha kale miyiga ee la tilmaamay oo dhan waxa idin muuqda weeyaan marka waxaa loo baahan yahay in aadiyaan ka daban inay wax ka qabataan si wanaagsan oo awreega dadkii soo eegtaan wax u qabtaan arday baana hayo ubaxii waddankaana hayo arday baana hayo ubaxii waddankaana hayo waxaanu ordayaa dugsiyada waada waxaanu ordayaa dugsiyada waada inaana ku kororsado dalkayga anfaxay dadalkii la yimide allahayo i gargaar aamin aamin ilaahayo i gargaar aamin aamin dadalkii la yimide allahayo i gargaar aamin